السلام عليكم walaalyaal kusoo dhawaada darsigeena ee maanta darsigeena waxaan uga hadlaynaa keywordka loo yaqaano as markii la joogo SQL waxaa loo isticmaalayaa magac in lagu bedelo ama rename in lagu sameeyo magac jiray in magac kale loo bixiyo laakiin waa si ku meel gaar ahaan ayaa loogu bixinayaa tusaale halkan waxaad u jeedaa waxaad soo dooranaysaa lagu leeyahay customer ID soo dooro as ID ahaan u soo dooro customer name kan waxaad soo doorataa la dhahay as customer marka meeshii customer name ahaay waxaa lagu soo bandhigayaa oo lagu tusayaa as a customer ahaana lagu tusay markii daato lagu soo bandhigo meeshii customer ID ahaayna waa ID kaliya ayaa lagu soo bandhigayaa marka waxaad leedahay ka soo dooro customerka marka halkan alias name-ka meesha qoran yahay waxaa loola jeedaa magaca ku meel gaarka ah oo inta query-gaas ama statement-gaas uu qoran yahay kaliya uu jiraayo marka statement-gaas ka baxdo ama database ka baxdo magaca sidiis hore ayuu ku laabanayaa waa codsi adiga ka codsatay in sidaas lagu soo bandhigo laakiin magacaas originalkiisu uu ahaanayo oo aan la bedelaynin sidaas ayaa loo isticmaalayaa as markii la joogo SQL aan fiirino pgadmin4 keena halkan waxaynu leenahay select waxaan soo dooranaynaa select ayaanu leenahay count aan dhahno count waxaan ku soo dooranaynaa column-ka loo yaqaano amount-iga ayaan waxaan ku soo dooranaynaa inta tiro oo ku jirto waxaynu leenahay marka from waxaad ka soo doortaa inuu leenahay payment-iga run haddaan dhahno halkan waxaad u jeedaa tiro 14,596 tiro ayaad meeshan ugu jeedaa halkan waxaa qoran count marka su-aasha meesha taala waxay tahay aan isweydiinayno maxaa la soo xisaabiyey maxaa waaye waxaan la soo xisaabiyey ma transactionskiya ma wax kala maxaa waaye ma ogin marka halkan waa meesha muhiimada loo isticmaalayo aska ama as keywordka loo yaqaano meesha loo isticmaalayo waa muhiimada loo isticmaalayo marka aan fiirino waxaynu leenahay select count amount marka maxaynu leenahay as waxaynu leenahay marka noogu soo door number of transactions ayaan dhihi karnaa meesha hadda waxa waaye count maayno halkan waxaynu leenahay marka as number of transactions noogu soo door ayaan leenahay halkan markaan ran jeeda halkan wuxuu ku leeyahay transaction numbers waa intaan hadda marka waa waadax waan fahmi kartaa waa tiradan meeshan waa inta transaction meesha dhacday waa 14,596 weeye hadda way cadda marka as muhiimadeeda ayaa sidaana marka hadda meeshan oo column-kan u jeedo oo transaction number waa column original ma aha laakiin adiga codsaday in lagu soo bandhigo marka ujeedkan ayaa loo isticmaalayaa as keywordka loo yaqaano as marka aan isticmaalno group bay aan isticmaalno sida aan hore soo isticmaalnayba group bay aan isticmaalno hadeertaan marka haddaan rabno inaan ogaano imisa customer ayaa waxa waaye ama customer walba inta lacaga uu ku isbaangareeyay store-ka haddaan rabno inaan ogaano ma ogaan karnaa waan ogaan karnaa sidatan ayaan ogaanaynaa waxaan isticmaalaynaa halkan group by ayaan isticmaalaynaa variable halkan marka select waxaynu leenahay sheeg customer ID ayaynu leenahay customer from payment noogu soo door marka waxaan soo dooranayaa group by ayaynu leenahay soo group garay ama isku soo aruuri as a customer ID haan isku soo aruuriyaan marka waxaynu leenahay run halkan marka waa ujeedaa waxaynu leenahay select soo dooro waxaa soo doorataa customer ID soo dooro iyo sum amount-iga waxaad ku soo doorataa amount isgeentiisa customer ID waxaad ku soo doorataa table loo yaqaano payment-iga waxaana soo isku keentaa as customer ID isku keen halkan waa ujeedaa 80 waxa waaye ID-ga 84 wuxuu haystaa isku darka 80 intaan uu haystaa marka samkan oo meeshan u jeedno sam kaliya ayaa qoran
laakiin samkan maxaa haddaan rabno inaan cadeyno ama waadix ay noqoto waa la ogaan karaa haddaan rabno inaan waadix ay noqoto halkaan meesha sam qoran tahay tusaale total spend intii oo la spend garay ama lacag haddaan rabno inaan meesha aan qorno asaasna loogu soo dooro isticmaali karnaa waa isticmaali karnaa halkaan maxaan sameynaynaa waxaynu leenahay select customer ID soo dooro iyo some amount waxaad ku soo doorataa paymentiga ku soo dooro ayaynu leenahay some amount waxaad ku soo doorataa payment maantaadan payment ka soo dooran ka hor waxaad leedahay as waxaad inoogu soo doortaan leenahay as total spend as maxaynu leenahay total spend as total spend marka intii yani total ahaan inta customer walba ku spend garay store-ka saas aan loogu soo door ayaynu leenahay marka group ay maxaynu leenahay customer ID halkaan marka waxaan leenahay run halkaan marka waa u jeedaa meeshii sam qornayd waxa lagu soo qoray total spend as alias ama lagu soo qoray oo magaca ku meel gaar ah ayna ahayn original kuwa ama caadi isu geenti normal ka ahayd waaye oo horey u jirtay laakiin tan waa ku meel gaar ahaan lagu soo doray adiga codsaday marka sam as keyword ka as loo yaqaano sida tan ayuu u shaqeynayaa marka tusaale kale aan isticmaalnaa wuxuu yahay waxaynu leenahay soo dooro customer ID iyo amountiga waxaad ka soo doorataan leenahay ase new name ama soo dooro halkaan ayaan saas ama isticmaalaynaa oo waxaynu leenahay haddaan rabno ase new name ama loo soo dooro halkaan waxaan isticmaalaynaa maxay ase new name waxaan noogu soo dooro ayaan leenahay oo magaca cusub waxaan noogu soo dooro waxaana ku soo doorataa maxay xagee ku soo doorataa waxaad ku soo doorataa from table loo yaqaano payment noogu soo door from payment noogu soo door marka waxaynu leenahay halkaan waxaan isticmaalaynaa keyword kale loo yaqaano where ayaan isticmaalaynaa marka waxaynu leenahay waa amountiga uu kala mid yahay ama uu ka sareeyo waxaynu leenahay labo run ayaynu leenahay halkaan marka waa u jeedaa waxaan soo dooranay waxaan leenahay select soo dooro ID customer ID soo dooro iyo amountiga waxaad soo doortaa as a new name waxaan ugu soo dirto halka ugu jeedo column kan waa new name magaciisa deertaan payment ku soo dooro meesha amountiga uu ka sareeyo labo ayaynu leenahay tan waa isticmaalnay marka waxa kale oo aanan isticmaali karin oo as kaliya yani loo isticmaali karo yani originalka kaliya loo isticmaali karo ayaa meeshan ku ogaanayna halkaan waxaan isticmaalnay original column oo amount ayaan halkaan ku isticmaalnay meesha waa statement laakiin sida normalka caadi baskii loo isticmaalo hadda meeshan new name-ka waxaa la dhihi karay meesha new name-ka uu ka weyn yahay ayaa la dhihi karay halkaan waxaa la soo celin karay new name-ka halkaan waxaa la dhihi karay meesha new name-ka uu kaga weyn yahay labo ayaan dhihi karay laakiin hadda ma sameyn karno haddaan sameyno error ayuu sheegaya waa ujeedaa wuxuu ku leeyahay column-ka new name-ka ma jiro meesha kuma jiro ayuu leeyahay sababta halkaan markaa joogto where aad isticmaalayso waxaa muhiima where marka la joogo alias ma isticmaali kartid alias kaliya waxaad ku isticmaali kartaa ama magacyada meel gaarka ah waxaad ku soo celin kartaa ama ku isticmaali kartaa kaliya marka aas isticmaalayso halkaan waxa waajib kugu noqonayo inaad isticmaasho original column inaad isticmaasho ayaa waajib kugu noqonayo mu isticmaali kartid alias ma isticmaali kartid marka halkaan waxaad leedahay meesha amountiga labo ayaad leedahay waa ujeedaa marka maanta darsigeena waxaan isticmaalaynay ama aan sharxaynay keyword loo yaqaano as marka waxa loo isticmaalaa si magac loo bedelo ama rename loo sameeyo si ku meel gaar ah inta uu statement iskaas qoran yahay ayaa la isticmaalayaa maanta darsigeena intaas ayuu koobnay aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh